laysa maahan albira wanaag an tuwalluu inaad u jeedisaan wujuuhakum wajiyaashiina qibala almashriqi qorax ka soo bax xaggeeda iyo walmaqribi qorax u dhac walaakina albira wanaagu man aamana biru man ruux wanaagiis weeyaan aamana rumeeyey billaahi alle iyo walyawmi maalinkii alaakhiri ee dambe iyo walmalaa'ikati malaa'igta iyo walkitaabi kitaabka oo kutubtii dhan loola jeeda iyo walnabiyiina nebiyaasha wa aataa bixiyey oo siiyey almaala xoolaha calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa lala qabo isagoo xoolihii jecel iyo wuxuu siiyey dawil qurbaa qaraabada kuwa saaxiibka iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiina saboolka iyo wabna sabiili socdaalka inankiisa iyo wasaa'iliina kuwa dawarsanaya iyo wafii fakki riqaabi wafii fakki riqaabi luqinta xorayntooda iyo soo deynteeda oo fakku riqaabka waxaa isla soo gelaya addoonkii la kitaabeeyey oo aad furdaamisid kii addoonka ahaa oo aad xoraysid intaad soo iibisid kii maxbuuska ahaa oo qafaalashada ka sii daysid intuba way soo gelayaan wafi riqaab oo wa aqaama toosiyey asalaata salaada wa aataa bixiyey azakaata zakada walmuufuuna macnaheedu waxa weeye waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay oo walmuufuuna wahum ayaguna almuufuuna kuwii oofinaya weeye bicahdihim ballankooda ilaahay iyo dadkaba ay la galeen idaa goorta caahaduu ay ballamaan walmuufuuna waa haddii khabaran ka dhigno mubtadihina aan xadafno waxaa kaloo bannaan walaakina albira man aamanadaas in laga badalo iyaduna way bannaan tahay ayib in lagu xiro lagu cadfo والصابرين وأمدحوا وحن أمانيا الصابرين كوا كو أتكيسانيا في البأساء فقرك والبأساء وفقرك يوض الرائع حنونك يوحين البأس دقالك وقت جيسة أولئك كواسي الذين كوي ويصدقوا رنشيغي وأولئك كواسي هم وإيمانك دي بكر رنشيغين وأولئك كواسي هم أيقا المتقون كوا إله كبقيا يا أيها الذين كوا أمنوا حق الرميو كتب وحل واجب يلي عليكم دشينا القصاص قصاص يا أرقود الشو شرعي في القتلى كوي في دم القتلى كوي لا يديكود الحر قفك حرته بالحر يقتل ولودليا بالحر قفك حرة والعبد أدون كان بالعبد أدون أيا لودليا والأنثى تندقنا بالأنثى تدق باللودل فمن روحي عفي الله ضاف له أسجى من أخيه من دم أخيه ولا الكديج حالوك هذا شيء وقساستي لقع فيه فاتباع فعليه كركي سوحا هذا اتباع راعد بالمعروف سيوانا والأجيه أوراعه ودكي وليدم كابال ربا يو أداء قدشو إليه كي وحلوجيستي حقي سلوجته بإحسان سيوانا أحسن إحسانا ذلك أرن كاسو عافين تاهي تخفيف وفضين ومن ربكم ربنا حقي كاهاتي ورحمة نحريس فمن قفك اعتدى حد قد بعد ذلك عافين تاها كقبال oo dakana iyo aana gala fala waasaga waxa uu sugnaaday cadaabkaas oo aliimun xanuun badan oo adduunka wala qisaasin aakhirana cadaab u yaal hadan ilaahay cafin wal untha bil untha wala nasakhay oo al mu'minuna tatakafu dimaa'uhum wala kum idinka waxa idin sugnaaday fil qisaasta dhexdeeda xaaluf ku sugnaaday xayaatu nolol yaa ulil albaab aqliga ku saaxiibka la'allakum satattaquna u baqda kutiba waxa la waajib yeelay عليكم دشينا إذا قرتي حضر أي كتي معدو أحدكم متكين الموت وجيرده أي أسبابه بلولتش ده أسباب موتك إن ترك هدو كتجي خيرا حوله الوصية دردارا أي الواجب يلا للوالدين لبضي الأشياء دردارا كاسو حالو أصغنادي والأقربين حكتاد بالمعروف سي وناقول إسلوجي حقا إيساء حق دردارا حقا دبأ وعلى المتقين تدوش وضع هذا أيضا ولا نسخذوه تي waxa lagu nasakhay waalidka iyo qaraabada la wasiyata li waarithin faman ruuhi badala hu dardaaranki bacda ma mudaka gadal sami'a uu maqlay hu dardaaranka oo qofkii marxaatiga ahaa oo dardaaranka marxaatiga ka haba badalay ama waligi loo dardaarmay waa badalay ama ilmihi loo dardaarmay fa inma ithmuhu badalkaas uu dardaarankii badalay dambigiisu cala alladina kuwii dushooda ayuu ahaanaya yubadiluna badalay hu dardaaranka أما ميت كي دردارمي أسأل حمد الصهراء إن الله ألا سميع الله ما قلب دنوي عليم وحول البيت فمن قفك خاف أي علم أجاده خاف معاني ذا وحى كم ذا علم الله استعماله فمن قفك خاف أجاده من موس قف دردارمي يحجي بوحو كأجادي جنفا لا حشو ولبس جف يخطأ وقد عضي أو إثما آمد دنبي أولا كعو سمينيو oo fa aslaha markaa hagaajiya baynahum kuwii loo dardaarmay dhexdooda
falaa ithma wax dembi la yidhahda calayhi dushi ma aha in allaha alla ghafuurun alla dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariis badan. macnaheedu waxa weeye qofkii dardaarmayey ayaad waxaad ku ogaatay khata inuu galay isagoo dardaarankii kaa qoray aadna aad markhaati tahay ama karaani ataa wax qoraysi. maalan xoolihii oo dhan buu yidhi waa dardaarmaya lamana ogola thuluth baa la rabi, ama wuxuu yidhi awlaadiisa qayb ka mid aan u dardaarmaya ayana lama ogola. marka waxaad ka ogaatay khata. janafku waa qofku markuu khata galo uusan u qastin, ithmiguna waa ula kac markaasaad hagaajisay. ama markuu dhintay kabacdi baa waxaad ogaatay dardaarankan qoranay khalad inuu yahay, markaasaad awlaadda u sheegtay dardaarankan waalidkiin uu ka tegay waa khalad sharciga ma waafaqsan, waad hagaajisay. yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow kutiba waxaa la idinku waajib yeelay calaykum dushiina asiyaamu soon kamaa sidii kutiba loogu waajib yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyay lacallakum saa tattaquuna ilahay uga baqdaan. ayaaman laba tafsiir baa ku jirta, inaad tidhaahdid suumuu sooma ayaaman maalmo oo ayaaman markaa ficilkaas lagu tacallujiyo waa tafsiir bannaan markaas ayaaman oo sidaa lagu tafsiiro. suumuu sooma ayaaman maalmo sooma maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey. faman ruuxii kaana ahaaday minkum idinka xaalu idinka mid yahay mariidan mid jiran aw calaa safarin ama socdaal dushi ku sugan oo macnaha markaa fa aftara afura fa ciddatun fa calayhi korkii waxaa ahaatay ciddatun tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara kaleeto. wacala aladiina kuwii dushooda waxa ahaaday yutiiquuna ay laa yutiiquuna aan karaynin husoonka fidyatun cunto bixin. fidyadii ilaah baa fasiro wuxuu yidhi طacaamu miskiinin miskiin quudintii. faman ruuxii tadawaca sameeya khayran wanaag fa huwa khayr samayntaasa khayrun u khayr badan lahu asaga. wa an tasuumuu ay wa sawmukum soomkiina ayaa khayrun idinka khayr badan lakum idinka min alfitri waalfidyati fidyada iyo afurkaba in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya. oo dee asbaabta qofku bishii rabadaan uu ku afuri karaay waa safarka iyo xanuunka iyo dhiiggii gabdhaha ku dhacayo xaydka ama kii umusha iyo cabsi uu naftiisa halaag uga baqay oo kaleeto. culamada qaar waxay ku daran iyo jihaad inuu xoogaysanayo oo kaleeto. wacala aladiina yutiiquunahu waa inagaas ku fasiray laa meesha inaan usoo qadaro laa yutiiquuna qofkii aan soonka awoodin. tafsiir labaad baa wuxuu yahay inaan waxba laa loo soo qadarin, waana sida saxda ah. oo waagii horeeto bisha rabadaan waxay ahayd qofku markuu soo gaaro laba u khiyaar lahaa, inuu soomo kow iyo inuu cunto bixiyo maalinkii koomba raashina u bixiyo. 3 marxalay marka ahayd, kow soon, 2 koomba raashina bixi, 3 waxaad samaysaa koomba raashina wax ka badan bixiyo ixsaan ah. markii dambeeta waxaa soo degay bisha rabadaan ha la soomo, markaasaa waxaa meesha ka baxay fidyadii kow iyo waxa weeyaan afurkii khiyaarka aad u lahayd, labaduba meeshay ka baxeen. soonkii baa lagaa rabaa. qofkii laakiin aan awoodin markaa waa loo ogoliyay. shahru ramadaana ramadaan bishiisa alladii kii weeye unzila la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur-aanka hudan qur'aanku xaalo uu hanuun u yahay linnaasi dadka wabayinaatin caddayma xaaluu yahay oo min alhudaa hanuun ka tirsaanaday iyo walfurqaani kala geen xaq iyo baadilka la kala saaro. faman ruuxii shahida xaadira minkum idinka xaaluu idinka mid yahay ashahra bisha falyasumhu ha soomo bisha rabadaan ha soomo. waman ruuxii kaana ahaaday mariidan mid jiran aw calaa safarin ama socdaal dushi ku sugan aw calaa safarin oo markaa fa aftara fa ciddatun fa calayhi korkii waxaa ahaaday ciddatun tiro oo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo u khara ee kaleeto. yuriidu wuxuu idinla doonayaa allaahu alle bikum idinka alyusra fudayd walaa yuriidu idinla dooni maayo bikum idinka alcusra culays. walitukmilu lciddata yuciinukum ilaahay wuu idin kaalmaynaya yuciinukum ilaahay wuu idin kaalmayn litukmiluu saad u dhammaystirtaan alciddata tirada walitukabiruu saad u weynaysaan allaha alle calaa maa sheegay hadaakum idinku hanuuniyey walacallakum saa tashkuruuna u shukridaan. waidaa goorta sa'alaka ay ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu cannii aniga xaggayga fa innii anigu qariibun mid u dhow baan ahay ujiibu waan aqbalayaa dacwata daaci midka baryootamaya baryadiisa idaa goorta dacaana uu ii baryayo. falyastajiibuu ha i ajiibeen lii aniga walyu'minuu ha i rumeeyeen bii aniga lacallahum se yarshuduuna u hanuunaan. uxilla waxaa la idin baneeyey lakum idinka laylata asiyaami soonka habeenkiisa arrafathu u galmoosho iyo u dhowaansho ilaa nisaa'ikum haweenkiina iyo ooriyaashiina aad u galmootaan. hunna ayagu libaasun astur bay idin yihiin lakum idinka wa antum idinkuna libaasun astur baad u tihiin lahunna ayaga. calima wuxuu ogaaday allaahu alle annakum idinku
kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna kuwa khiyaana anfusakum naftiina oo jimaaca iyo waxaad ku khiyaani jirteen iyo cuntada iyo cabitaanka fataaba ilaahay wuu toobad aqbalay calaykum dushiina wacafaa wuu idinka celiyo idinka tirtiray cankum xaggiina xukumkii idin saarnaa fal'aana hadda baashiruu u galmoodahunna haweenka wabtaquu raadsada maa wixii kataba bimacnaa kataba maanta waxa weeye yasara uu idiin fududeeyey allaahu alle lakum idinka wuxuu ilaahay idiin fududeeyana raadsada wakuluu cuna oo washrabuu caba habeenkii xataa yatabayana ilaa uu idinka cadaada lakum idinka alkhaytu liilanka iyo dunta alabyadu ee cad min alkhayti liilankii iyo duntii alaswadi ee madoobaabay min alfajri waa beriga ka mid a uma atimuu dhammaystira asiyaama soonka ila leyli habeenka inta laga gaarayo oo gobolku ka dhacahayo walaa tubaashiruu hala fara ka ciyaarina hana u galmoonina hunna haweenka walxaal antum idinku caakifuuna kuwa ku nagi atiin filmasjidi masaajidka tilka taa la soo sheegay xuduudullaahi ilaahay soodimihii weeye falaa taqrabuu ha u dhowaanin haa ayada kadaalika sidaasuu yubayinu u caddaynaya allaahu alle aayaatihi aayaadkiisa linaasi dadka lacallahum say yattaquuna ilahay uga baqaan oo uxilla lakum leylata siyaami rafathu rafathku qur-aanka meelaha kaloo lagu sheegay waxaa loo isticmaalaa fuxshiga xumaata ah laakiin halkaan oo kale waxaa loola jeedaa waa un jimaaca macnaheeduna wuxuu ahaa waagii horeeto islaamka qofkii bisha rabadaan sooma ee gabalku u dhaco haddii asagoon wax cunin uu xoogaa indhaha isgeliyoo gam'o waxa weeyaan waxaa waajib ku noqonaysay soonkii inuu sii xiriiriyo uusan waxna cunin waxna cabin reerkiisana u galmoon haddii uu maqribkii afura kabacdina mararka qaarkood waxaa dhacaysay in la yidhaha wax damba ha u noqonin jooji marka waxaa imaanaysay raggii qaarkood inay maalin soomeen habeenkii ay waxa weeyaan reerkii aysan arag maalinkii dambeeta ay soo marka habeenkii baa ragga qaarkood waxay sameynayaan haweenkii ku daqaqamayeen ama gabadhii oo laga yaabo inay shalay galab seexatay maqribka iyadoon afurin oo soonkii sii wada intay ku tiraahdo war waa soomanahay oo xalayta horay baan u gabay intaanan afurin inuu yidhaahdo way kaa cudur daaranaysaayo tunka kusoo dhago ayadana waxa weeye waa khiyaanada laga hadlayo marka middan ilaahay uu leeyahay kuntum takhtaanuuna anfusakum waxay nafta ku khiyaanayaan waa galmadaas iyo cuntada iyo cabitaanka habeenkii qaarkood u dhuumanayaan ayib walaa ta'kuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina xaalay xoolahaasi ku sugnaadeen bilbaatili waxaan jirin oo baatila ha ku cunina ama mustaciniina idinka u kaalmaysanaya bilbaatili wax baatila xoolaha leedahayna xumaan ha u isticmaalin kuwa dadkana baatil ha ku cunin watudluu oo aad markaas ugu dhawaataan biha xoolaha ilal xukaami madaxda litaakuluu saad u cuntaan fariiqan gabal oo min amwaalinaasi dadka xoolahooda ka mida bil ithmi dembi saad ugu cuntaan iyo xumaato walxaal antum idinkuna laa taclamuuna idan garanayn watudluu biha ilal xukaami laba tafsiir baa kuu bannaan watudluu wowda maciye inaad ka dhigtid waa sida aan marnadoo watudluu biha idinkoo ugu dhowaanaya xoolihii ilal xukaami madaxda waxaa kaloo tafsiir labaad ah laadaa horeeta inaad ku xadaftid oo jaazimada walaa ta'kuluu amwaalakum xoolihiina ha cunina watudluu walaa tudluu ha ugu dhowaanina biha xoolihii ilal xukaam yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabi maxamedow canil ahillati bilaha laba su-aal bay kaa weydiinayaan bishu markay dhalanaysa maxay u yartaha kabacdina ay u weynaataa markay sii dhammaanaysana u yaraataa waa su-aasha labaad baa waxay tahay bilaha ujeeddada laga leeyahay maxay tahay taas dambaana laga jawaabay qul waxaa dhahdaa nabi maxamedow hiya iyadu biluhu mawaaqiitu xilliyaal ayay u tahay linaasi dadka iyo walxaji dadka walaysa albiru wanaagu maaha bian ta'tuu inaad uga timaadaan albuyuuta guryaha min duhuriha dhabaradooda walaakina albira wanaagu man ittaqaa biru man ruux wanaagiis weeye ittaqaa ka baqay rabbigii waatuu uga imaada albuyuuta guryaha min abwaabiha iridadeeda wattaquu ka baqa allah ale lacalakum saa tuflixuuna u liibaantaan oo guryaha markay xajka aadahayaan bay meel kale kaga imaan jireen oo dhalada iyo meelahaasoo meelihii waagi hore aan ka bixi jiroon macaasida samayn jiray kasoo geli mayna oran jireen oo cibaaday ka dhigan jireen waqaatiluu dagaalama fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa waxaad kula dagaalantaan aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamayo oo waa cumradii nebigu soo cumraystay oo u socday sulxulxudaybiya waqtigii dhacaysayoo markay dhacday kabacdiyo wuu ka cabso wuxuu yiri armay dhib keenaan iyo sharkoodu wuxuu yiri laga badbaadi maayo markaasaa waxaa la yiri hubkiina qaata hadday idinla dagaalamaana la dagaalama haddaysan idinla dagaalamayna maya walaa tactaduuha xadgudbina in allaha laa yuxibu majcala almuctadiina kuwa xadgudbaya waqtuluu laayahum gaalada xayثu meel allaala meeshii thaqiftumuu aad ka heshaan hum ayaga wa akhrijuu ka saara hum ayaga min xayثu meeshii akhrajuukuma idinka saareen waalfitnatu shirkiga iyo gaalnimada ay xaramka ilaahay ku samaynayaan ayaa ashaddu ka darnaansho badan min alqatli dilka waxaa weeyaan gaalada la laynayo
walaa tuqaatiluuha la dagaalaminana hum gaalada cinda almasjidi masaajidkii agtiisa masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa xataa yuqaatiluukum ilaa idinkula dagaalamaan oo ayagu idinla dagaalamaan fiihi dhexdii fain qaataluukum hadday idinkula dagaalamaan faqtuluu laayahum ayaga kadaalika sidaasuuna ahaaday jazaaulkaafiriina kuwa gaaloobay abaalkooda fain intahow hadday ka reebtoomaan xumahan iyo waxaan ay wadaan oo kufriga ah oo islaamaan fa in allaha alla ghafuurun alla dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariis badan waqaatiluu la dagaalama hum gaalada xataa laa takuuna saysan u dhicin oo kaanada taamo laga dhigo fitnatuna faacilkeeda laga dhigo wax imtixaan ah oo wayakuuna uu u dhaco u hirgalo addiinu diinku uu waxa weeyaan ugu ahaado lilaahi alle oo keli ah fa in intahow hadday reebtoomaan falaa cudwaana wax collaytan la yidhaahdo calaa axadin qof dushi ma ahan iyo xadgudub ilaa cala adaalimiina kuwa dhaalimiinta dushooda mooyaane oo xadgudubkan loola jeeda dee in layska dhiciyo ashahru bishii ashahru bilihii alxaraamu ee xurmada lahaa bishahri alxaraami muqaabalun mid la qaabilsiinaya weeye bishahri bishii alxaraami ee xurmada lahayd waalxurumaatu waxyaalaha xurmada lehna qisaasun kuwa isu dhigma weeye faman ruuxii ictadaa ku xadgudba calaykum dushiina factaduu ku xadgudba calayhi dushiisa bimithli maa shay wax lamida ictadaa uu ku xadgudbo ku sameeye calaykum dushiina wattaquu ka baqa allaha allo waclamu waxaad ogaataan ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa alla ka baqo iska jira la jirankooda inuu yahay wa anfiquu quudiyo bixiya fii sabiilillahi ilaah jidkiisa wax ku bixiya walaa tulquu ha ku ridina biaydiikum gacmihiina ila tahlukati halaagoo jihaadka ha ka tegina wa axsinuu wanaag sameeya in allaha alla yuxibu wuu jecel yahay almuxsiniina samafalayaasha wanaagga sameeya wa atimuu dhammaystira alxaja xajka iyo walcumrata cumrada lilaahi alla darti fa in uxsirtum haddii la idin sharoo la idinka hor istaago famastaysara fa waajibun calaykum dushiina waxaa waajib ku ah maa wixii istaysara fududaada min alhadyi hadyi xaalu yahay iyo xoola la kaxeeyo walaa taxliquuhaa xiirina ru'uusakum shacra ru'uusikum madaxyadiina timahooda xataa yabluqa ilaa uu gaaro alhadyu xoolihii hadyiga ahaa maxilahu meeshii uu ku banaanaanayay faman ruuxii kaana ahaaday minkum idinka xaaluu idinka mid yahay mariidan mid jiran ow bihi ama asaga uu ku sugan yahay adan dhib min ra'sihi dhibkaasoo min ra'sihi madaxiisa xaggii ka ahaaday fa fidyatun fa calayhi korkiisa waxaaday fidyatun fidye ayaa ahaatay oo min siyaamin soon ah aw sadaqatin ama waxbixin ah aw nusukin ama gowrac ah fa idaa goortii aamintum aad aamin noqotaan faman ruuxii tamataca cumraysta bilcumrati cumro ku raaxaysta faman ruuxii tamataca ku raaxaysta bilcumrati cumro ila alxaji xajka inta laga gaarayo fama staysara fa calayhi korkii waxaaday maa wixii istaysara fudaado min alhadyi hadyi ah faman ruuxii lam yajid aan helin fa calayhi korkii waxaaday siyaamu halaathati ayaamin fa siyaamu halaathati ayaamin 3 maalmood soonkood ayaa korkii ahaatay oo filxaji xajka dhexdiisa intuusa soo noqon iyo wa 7 7 beri oo idaa goortii ah rajactum aad noqotaan tilka taasi oo 3 iyo 7 marka la isku daro 10 waa 10 kaamilatun oo buuxdo dhammaystiran daalika xukumkaasi liman ruux buu u sugnaaday lam yakun uusan ahayn ahluhu qoyskiisu xaadiri lmasjidi masjidkii kuwa degan alxaraam ee xurmada lahaa wattaquu ka baqa allaha allo waclamu waxaad ogaataan ana allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkii miduu daran yahay inuu yahay alxaju xajku ashhurun waa bilahaasoo macluumaatun la og yahay faman ruuxii farada ku waajib yeela calaa nafsihi naftiisii ka dhigantaha fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xaj falaa rafatha wax rafath la yidhaahdo iyo jimaac iyo shukaansi iyo hordhiciis xajka kuma sugna walaa fusuuqa wax faasiqnimo la yidhahdana kuma sugna walaa jidaala wax cantarabaqash la yidhaahdana filxaji xajka dhexdii ma ahaanin wamaa wax allaala wixii oo madu waa shardiyo tafcalu aad samaysaan min khayrin wanaag xaaluu yahay yaclam wuu ogyahay hushaygaas allaahu alle watasawaduu sahay qaata oo maxaa laga wadaa wixii safarkiinaan aad ku meel gaari lahaydeen u sahay qaata fa inna khayra zaadi sahay midka ugu khayr badan attaqwa alla ka cabsi weeye wattaquuna iga baqa yaa ulil albaabi kuwa caqliga u saaxiibka ah halkan baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay oo ku jamciye safarkii adduunyo oo kii xajka ah iyo safarkii aakhiro taqwada ah sida ilaahayba suuratul acraaf ugu kulmiyey taqwada waxa weeyaan asturka taqwada baadinka iyo quruxda baadinka iyo midda muuqata labadaba oo yaa bani aadama khuduu zinadka markii la lahaa qad anzalna calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha wa libaasu taqwa dhalika khayr marka waa dharka korkaaga qarinaya iyo acmaasha gudahaaga qurxinaysa
laysa calaykum korkiina maaha junaaxun wax dembiya an tabtaquu inaad raasataan fadlan dheeraad oo min rabbikum rabbigiina xaggi ka ahaaday fa idaa goorta afadtum aad ka soo dhaqaaqdaan min carafaatin carafooyin carafo xaggeeda fadkuruu xusa allaha alle cinda almashcari mashcarkii agtiisa alxaraami ee xurmada lahaayo waa musdalifa laga wadaa mashcarulxaraam marka maanta halkaasaa loola jeedaayo meeshaas ayadaa ilaahay ku xusa ayib wadkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum ka hidaayatikum hanuunintiina uu idin hanuuniyey uu idinka idin hanuuniyey wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi arrinkan ka hor lamin addaaliina kuwa dhunsan mid kuwa ka tirsan uma afiiduu dhaqaaqa min xaysu meesha afaado ay ka dhaqaaqayaan annaasu dadku meeshay dadku ka dhaqaaqayaan ka dhaqaaqa quraysh baa lala hadlahayaayo dee carafo dadku markay ka dhaqaaqayaan dadka la socdaa laleeyahy ayib wastakfiruu dembi dhaaf weydiista allaha alle in allaha alla kafuurun alla dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariis badan fa idaa goortii qadaytum aad gudataan manaasikakum acmaashiina xajka fadkuruu xusa allaha alle ka dikrikum xusitaankiina mid la mid ah aabaa'akum aabayaashiina aad xustaan aw ashadda ama wax ka darnaansho badan dikran xagga xusitaanka fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man duul yaquulu odhanaya rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wax u nasii walxaal maa lahu ruuxa usan u sugnaan fi laakhirati aakhira dhexdeeda min khalaaqin wax ayaan iyo dheef ah wa minhum waxaa ka mid a man duul yaquulu odhanaya rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan wanaag wa fi laakhirati aakhira dhexdeedana xasanatan wanaag waqinaa ilaahu naga ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeeda ulaa'ika kuwaas lahum ayaga waxaa u sugnaaday nasiibun dheef waa labada qolaba mimaa kii xaggiisuuna uga sugnaaday kasabuu ay shaqaysteen wallaahu allana sariiculxisaabi xisaabkiisu miduu degdegayo weeyaanu aqoonteedii awooddeedba waa leeyahay wallahu aclam wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin